laascaanood ayaan ku guda jirnaaye magaalada garowe waxaa kulan ku yeeshay isimada laascaanood iyo wafdi ka socda Itoobiya oo ka shaqeynaya in la joojiyo colaada ka socota magaaladaas. caaqil cabdirasaaq maxamed xasan faluug oo ah hafayeenka guddiga 33 ee ay ka tashiga SSC ayaa foos ciid uga waramay waxa ay ka hadleen ama ay kala hadleenba wafdiga Itoobiya. shirka garowe ka dhacay dhexdhexaadintu wuu jiraa. inagu garowe waxaan kula kulanay niman Itoobiyaan ah, nimankaas oo markii hore ka yimi xagga Hargeysa markay ka yimaadeen oo ay soo arkeen ninkii meesha xukumayayna waxa ay yimaadeen garowe. dabeedna garowe annaga noogu yeedheen oo waxay yiraahdeen laascaanood dagaal baa ka socda oo ma soo geli karo, marka noogu imaada garowe. waan ka aqbalnay, waana ugu nimi, saasaan ku nimi markaa garowe. marka wafdiga garowe aad ku kulanteen ee ka socda Itoobiya maxaad ka wada hadasheen? walaal wafdigu iyaga dalab ka lahaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii soconaya la wareystaa marka hore. nimanka waanu wareysanay, waxayna yiraahdeen waxaanu doonaynaa horta Muuse waanu soo aragnay, wax badan buuna naga ballan qaaday. annaga waxay yiraahdeen waxaanu doonaynaa kaliya inaad xabad joojinta aad nala qaadataan. faahfaahin ma idinka siiyeen kulankii Hargeysa iyaga iyo xukuumadda Somaliland ku soo maray iyo waxyaabihii xagga ay kaga soo wada hadleen? faahfaahin dheer nagama siin, oo waa taqaanaa qofka diblomaasiga ahi oo waliba doonaya inuu wax dhexdhexaadiya dhaqan ahaan iyo diblomaasiyad ahaan intaba wixii lagu yiri ma wada sheego. wixii marka uu cid kale ku qancinayo uu sheega. marka anaga waxaan yiraahdaa waa nala soo qaatay xabad joojinta, waa isla soo qaadanay. idina waxaan idin doonaynaa inaad xabad joojinta aqbashaan. xabad joojinta marka horey ayay labada dhinacba u ballan qaadeen in ay sameynayaan xabad joojin, waliba Somaliland ay tiri xabad joojin shuruud la'aan ah. ballanqaadkani kii hore muxuu kaga duwan yahay marka labada dhinac la eego? runtii waxaan in badan BBC-da iyo warbaahinta adduunka baanu u sheegnay annagu inaanu markasta xabad joojinta iyo nabadda aanu diyaar u nahay, laakiin waxaanu mar walba ka digaynay balqaadyada Muuse iyo gruubkiisu ay sameeyeen xabad joojinta ah oo ay leeyihiin xabad joojinaan shuruudo ku xidhnayn. waxaanu idiin sheegi jiray saad u xusuusato ma aqaan inaanu waxba kama jiraan waxaasoo maalin walba subaxdii waqtigii marka la gaadho unba weerarka iyo dagaalkuna bilaaban jireen. annagu niyad sami kuma qabno arrinta iyo warka halkaa ka jira. waxaanu arkaynaa inuu wax urursanayo, burburkii ciidankiisa ku dhacay uu isleeyahay aad ururisid, hubka iyo uu soo badsanayo iyo saanada soo badsanayo, inuu diyaar garoobayo baanu arkaynaa. arrinta weerarada Somaliland dhankiina ayay idinku eedeysay oo ay sheegeen in weerarada idinka aad soo qaadeen iyaguna ay iska difaacayeen. taa maxaad ka leedahay? arrinta marar badan hore aanu ka jawaabnay, haddeerna waanu cadaynaynaa. annagu mar kasta iyo saacad walba waxaanu u taaganahay inaanu helo nabadgelyo, in caruurtayadu nabad gasho, xaasaskayadu nabad galaan, naftayadu nabad gasho, baanu mar walba u taaganahay. laakiin mar kasta waa nala kalifayey, waa nala soo weerarayey. annagu madaafiic iyo bahalahan hoobiyaasha iyo midna ma haysan. waxa ay soo tuurayaan oo ku bilaabayaan dagaalkana waxay ahayd duqayntii caamka noqotay oo idinkuba aad arkayseen, oo masaajidada gubanaya, dhakhtarada gubanaya, guryaha shicibka ah oo gubanaya. waa markhaati madoontaasi. marka waa war cad weeye mar walba iyagu inay soo bilaabayeen. marka kulanka dhacay aynu dib ugu noqono, maxaa diiday in uu ka qabsoomo magaalada Laascaanood maadaama hadda aad ku kulanteen magaalada Garowe? annagu waa iska joognay oo waanu jeclayn inay noogu yimaadaan Laascaanood oo nala arkaan waxa dhacaya. markhaati bay noo noqon lahay, laakiin laftooda u baqeeno meeshan indhala'aanta lagu duqaynayo oo madaafiicda lagu soo ridayo naftooday ku aamini waayeen. dabadeedna waxay yiraahdeen halkaa noogu kaalaya, annaguna waa ugu nim. dhankiina waxaa la idinku eedeynayaa in dagaalka aad sii ballaariseen oo sool aad ka sii ballaariseen. arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaan? adeer annagu maanu fidin, mana aan qayladhaanna umaanu samayn, laakiin waxaa la leeyahay waxaad u sheegid waan garanayaa, waxaad leedahay qowdulooyin kala ku soo biiray, laakiin waxaa idinka maqan dhulbahanta iyo fiqishini meel kasta way degan yihiin. Puntland bay degan yihiin, federaalka iyo xamar bay degan yihiin, waxay degan yihiin meesha la yidhaahdo Kismaayo, kilinkay degan yihiin.
waxaa laynayaana waa dadkood waa run intaasba gurmado dhulbahanti leeyahay baa nooga timi ugu dambayntii kulanka ka dhacay garowe maxaa natiijo ah oo ka soo baxay maxaase lagu soo gebagabeeyey oo la isku afgartay natiijada anagu wixii ay noola yimaadeen wafdigii ka yimi etoobiya waanu ogolaanay xabad joojinta awalbana weerar maanu ahayn hase yeeshee dee waanu cadaynay mowqifkayaga inaanan weerarna ahayn xabad joojintana aqbalayno marka ay meel xabad laga wada hadli karo oo macquula la kala tagana wadahadal kasta meel kasta uu ka dhacayo diyaar baanu nahay kaasi waxa uu ahaa caaqil cabdirasaaq maxamed xasan